السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموسب مرول بإيميل الباجوكتيم سود هذا صاحب هذا هو ذو صاحبنيو سيدا أدو جدا بوحواي أم عوانك أتكسو عركتين بو مقال كان وحا كساب سنها وذا شيكايسي كان وحواي إنجليش انت هورت مقال كوجود قلنا هدية جنال كان كعسب تاي سبسكرايب صار هدية هوري إنه لجوكتين فيديو لايك صار maalmihii ugu dambeeyay social media waxa ka bilowday in wada sheekaysiga oo English ka ah oo private-yada la soo bandhigo anaga markii aan wada sheekaysi private ku sameyn jirnay sidaan si ka daran oo soo wada sheekaysan jirnay laakiin kuwayna ma la soo gudbin jirin private noo ahaayeen laakiin hadirtaan in la soo duubo oo social media la soo dhigaa la bilaabay maanta laakiin waxa idii haya wada sheekaysiga ugu shidnay horta ciwaan waxay uga soo dhigeen qaabka English looga barto magaalada Jigjigo okay marka waxaan wada daawan doonaa wada sheekaysigan gabdho iyo wiilal waaye qayb yar aan arkay marka video-ga dhameystirna soo raadiyay waa kana YouTube ku jira 6 daqiiqo waaye insha Allah waa wada daawan doonaa marka waxa arki doonaa qaabka loo wada sheekaystay Jigjigo anaga waxa wili Jigjigo ma arkin waa suurtagal inaad u malayso in dadka halkan ka muuqda ay yihiin kuwa ku buuqsan arrin halkan ka dhacday balse xaalku sidaasi waa uu ka duwan yahay oo waa arday ku wada hadlaysa luqadda Ingiriishta oo ay ka bartaan معهد halkan ku yaala sida u jeedin boorto marka hore waxa la dhahaa dadkan sab meesaf ugu jiraan hadana waa la buuqooya macnaha meel oo buuq caadi ah dadkan ka dhaxdaaran iskuul laxdiisana ma aha wadada waaye kulli iskuulku deeq waaye oo maleena ardada iskuulka dhigata dhan oo saacadaha kala duwan soo galaana hal mar la wada bilmiye marka wadada iskuulka hormarta dhan ayaga ugu antaay macnaha gabadhan yar waa gabadh ugu horeysay muuqaalkeeda aan arko gabadhan qaabka English ugu hadlayso way fiican tahay laakiin buuqa isku furoosa tan kala dhar isku eega wada wataan xabsi ma laga soo saaray macnaha maxaa dhar caasaan wada wataan ama gaduud sa u taqaanid waa qaabka loo barto luqadda Ingiriisida magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida ardayda halkan joogta ee baranaysa luqadda Ingiriisidu waa kuwa dadaalaya waxayna rajeynayaan inay mar u noqdaan kuwa si fiican ugu hadlaya luqadda Ingiriisida oo ah nidaamkani qaabka looga barto deegaanka Soomaalida luqadda Ingiriisida balse maxay tahay ujeedada kale ugu weyn ee ardaydani ay u doonayaan isla markaana ay muhiim ugu tahay barashada luqadda Ingiriisida dawlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba jaamacadaha dalka Itoobiya ayaa lagu bartaa luqadda Ingiriishta iyadoo luqadani ay muhiim u tahay arday kasta oo doonaya inuu waxbarashada ka gaadho heer jaamacadeed waana mid ka mid ah sababaha ardayda halkan ku xoonsan ay luqadda u baranayaan hase ahaatee halkan hablaha iyo inamada waa la kala soocay macnaha gabdhaha gooni laga dhigay wiilashana gooni laba saf la kala galay waxa waaye qof walba qofkii lagu soo aadiyaa inuu madax ka galaal rabo macnaha wax horaba kala hadli kara laakiin muhiimadu waa ina English ugu wada sheekaysto anaga waxa xasuusanaa markaan oo kale waxa isweydiin jirnay qof saaxiibka ama qof hadirtan guriis kala soo baxdeen ama asxaab atiin oo masaajid aad kula soo dukateen khudbada oo wuxuu ku dhahaa are you Muslim iyo do you pray 5 times waxyaabo noocaas ku weydiina marka waxyaabahan oo English markii la baranayo waxa laga wada hadlayo muhiim ah ina English ku hadasho muhiim ah ku socdo marka ay ku wada hadlayaan luqadda Ingiriisida wiilashuna gaar ayay ugu wada hadlayaan gabdhuhuna gaarkooda sababtana soo barnaa waxa weeye luqadan kulli aniga ahaantayda waxaan barnaa inaan lagu fahmo dadkana aan ku fahmo sababtoo hadda waxaan anigu grade 12 faanahay waxaan dhigtaa iskuulka Sheekh Cabsalaan subjectooyinka maadooyinka waxa igu baxaan waa Ingiriis si ahaantayda waxa ku nool wadanka Itoobiya ay dad kala duwan luqadda Maxaariga Tigreega sidoo kale maadaama luqadaha aan fahmi karin luqadda Ingiriiska waa isku fahmi karnaa sababtoo haduu Ilaahay ka dhigo insha Allah waxaan gali doonaa jaamacadda Jigjiga waxa iga horeyn doonta waa luqadda Ingiriiska waxaan tagi karaa wadan kale oo laga yaabo inaan qurbahaado luqadda Ingiriiska ay waan u baahanahay because time hadda English noogu tuurtabe micnaha anaga xataa waxay noo maleynaysaa miya ku practice-ka ila sameeynaysa sababta aan u dhigto English-ka waxa weeyaan maadaama oo jaamacad sugayso jaamacadii waxa loo baahan yahay ama wax lagu bartay waa luqadda Ingiriiska marka hadaad garanaynin ama aad ku hadli karinin oo aad dadkii fahmi karinin waa inaad barato aduu mostly inaad barato weeyaan luqadda Ingiriiska waa soo aad bay muhiim u tahay maxaa yeelay haday xitaa waxaad ku qornaan kartaa meel kale oo aan ahayn wadankaagii waxa aad dadka ku fahmi karayso marka ay ugu dhow ardaydan iyagu waa laftikooda Ingiriiska ama baranayay waxa aad ku fahmi kartaa waa Ingiriisku marka sidaa ayuu muhiim yahay sidaan ayaan u bartaa Fadixi Cabdi Ahmed waa macalinka ardaydan bara luqadda Ingiriisida waxa uu ka warbixinayaa nidaamka uu ardaydan u baro luqadda Ingiriishta iyo isaga laftiisu qaabkii uu ku soo bartay
luuqadda. luuqadan waxaa jigjiga looga bartaa aala waa sidan waa saad aad soo aragteen practice-ka la qaataa macnaha waxa u maleynaa meesha practice-ka ugu muhiimsan marka 2 maalin hadaa qaadatid xiisada caadi ama glass caadi aa gashid saddexda maalin oo kaleeto oo jimciye khamiis markii laga reebo saddexdaas maalin oo kaleeto wadadaas soo istaagay iskuulka marka imaatid wadada la iska xadirinay qof oo kula sheekaysta sugay laba dibadda loo istaagaa inamaduna gaar bay u sameeyaan gabdhuna gaar bay u sameeyaan waxaan u sameynay inay inamaduna isku maamulaan oo alaqa iyo supervisor yeeshaan wiilashuna gabdhuna sidoo kale ay ismaamulaan ay supervisor intaba yeeshaan sharci noo gaar ah jira oo cidii Soomaali ku hadasha xilliga gaarka ay la taagan yahay practice-ka inuu mudanayo qofkaasi ganaax sharcigana waxa weeyaan marka brevet-ka la yimaado speak English only ardaydu isku wada jiraan fasalkii waxa sharcigaas wax kale ah macnaha marka iskuulka iridiisa soo istaagtid hal area of Soomaali ma laga maqli karaa lagu dhahay macnaha marka taasa dhibaato keenayso waa dad Soomaali ah oo la dhahay luqadiin ma ku wada hadli kartiin wax walba ka filaadi laga yaabaa inay isugu yimaadaan arday kala duwan oo kala background leh tusaale ahaan waxa ku imanaya arday 12aad oo luqadda u baahan oo baahidu simayso arday 6aad ama 7aad ama 8aad anaguna waqti baan ku bixinaynaa si gaaran qof kasta kaliya u baranaa marka hore marka dambana koox baan ka dhigaynaa from zero to hero markay brevet-ka soo galaan taariikh baan u reebnaa oo waxyaabo noo gaar ah jira maalintay brevet-ka ka tagayaan iyagoo Ingiriiska nala doodaya oo waxyaabo si guud noola hadlayay bay ka tagaan taasi waxay ku tusaysaa qofku markuu brevet-ka soo galayo luqadda Ingiriiska inuu ku soo biirayo isagoo inta badan luqadda aan ka dhisnayn haba ahaado inta badan arday dugsiga sare dhigta taasi waxay ku tusaysaa marka in ardaydu ay ka sameeyeen marka luqadda baranayaan iyadoo loo eegayn background-gooda kadib waqti bay qaadan ardaydu waxay ku xidhan tahay fahamkooda iyo dadaalkooda waxaan isku xidhnaa group si wax u soo akhristaan marka laga soo tago barashada luuqadda Ingiriisida ee halkan ka socota waa hubaal in kuwa badan oo idinka mid ah ay dib u xasuusteen waayihii waxbarasho gaar ahaan waqtiyadii barashada luuqadaha qalaad sida Ingiriishta iyo af Carabiga annagaaba kamid ah macnaha dadka waxa soo xasuustay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay annaga markii aan wada sheekaysi wada qaadan jirnay waxay ahayd laba qof bis in la soo istaajiyo microphone haday tahayna loo dhiibo ardada kalena ay daawadaan laba la isku soo istaajiyo balse ayagu waxooda waa hayaacada macnaha sab ina saf loogu jiro amal meesha dhan English lagu hadlo qof oo luqadda aan fahmin hadoo soo dhaxgalo inay wada waasheen u maleynaa macnaha dadkan waxa ay ka wada sheekaysanayaan hadoo fahmi waa marka intaas uu ku eegyahay muuqaalkeena hadii aad inta ayna la soo gaartay oo aadan wili inagu soo biirin hadirta inagu soo biir subscribe-kaas inaga geeji inta muuqaalku xigoo kulmi doono dhamaantiin waxay idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo